الله الرحمن الرحيم ugu horeyn ilaahay baa mahad leh inta ka bacdi anigoo xildhibaan Faysal Xaashir Rayaale waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo saddex qodob oo muhiim ah oo khuseeyo degmada Saylac saddexda qodob waxa ay kala yihiin kow dekada qadiimiga ah ee magaalada Saylac oo muddo fara badan soo jirtay maanta heerka ay taagan tahay iyo xaalkeedu sida uu yahay waxaan rabaa inaan isdul taago oo aan bulshada Soomaaliland u iftiimiyo iyo dawladda cusub ah qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlayna waa jidka isku xidha Looyacado Fardaha iyo Boorama oo ay bulshada degmadan ku nool ay aad iyo aad ugu baahan tahay qodobka saddexaad isaguna waa jidka isku xidha Boon iyo degmada Xariirad saddexda qodob baan rabaa inaan isdul taago ugu horeyn aan ku horeeyo dekada qadiimiga ah ee magaalada Saylac runtii magaalada Saylac waa magaalo taariikhi ah bulshada ku nool ay tahay bulsho facweyn oo xadaarad leh waxay ahayd dekadani waqtiyada kamid ah dekada geeska Afrika oo dhan ay wax uga soo degaan waqti ayna Djibouti jirin ayna Berberi jirin bay Saylac oo kaliya hayti geeska Afrika qoodinayso ay wax uga soo degayeen runtii maamullo kala duwan baa soo maray degmadan dawladda Cusmaaniya baa soo martay dawladda isticmaalka Ingiriiska soo maray wixii la isku oran jiray Soomaaliya markii ay wadanka ka dhalatay dawladdeedii baa soo martay haatanna xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland baa ka talisa runtii intaaba heerar kala duwan bay dekadaasi u soo shaqeynaysay waana lafdhabarta dhaqaale ee ay deegaankan iyo dadkani ay ku nool yihiin runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay in dekada taariikhda lahaydii ay maanta ku dhowdahay baaba waxaan ugu baaqayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsatadeeda iyo dawladaba inay il gaar lagu eego oo dekadaas sidii ay u dhismi lahayd maadaama ay il dhaqaale tahay si ay dadkani waxna uga dhoofsadaan waxna uga soo degaan in falankeeda la qabto oo laga shaqeeyo dawladda cusubna waxaan ku baraarujinayaa in mar hore waxa jirtay miisaaniyadda 4 bilyan loogu daray in kasoo ayna wax weyn ka qabateen haddana dhig joojin bay u noqon lahayd in maadaama oo maanta lagu noqonayo miisaaniyaddii waxa annaga degmada Saylac 1 iyo 2 iyo 3 ba oo aan codsanaynaa in dekada miisaaniyadda maanta lagu daro oo wax laga qabto qodobka intaas aan kaga tagayaa ka labaad waa jidka isku xidha Looyacado Fardaha iyo Boorama runtii jidkaas waxa maal gelinaya African Development Bank wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaan rajaynaynaa